بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كسر دوادة تربية تعليم إيا عشر كاني هل دقيقة تربية تعليم ما أنت وحن كسو قادانا سنة لا أتكيي سنة مؤكدة إلينا وأنجي سنة أقيبين الله قيبات سنة مؤكدة سنة لا أتكيي إيا سنة غير مؤكدة marka casharkeen wuxuu ku saabsan yahay sunnada la adkeeyay sunnada la adkeeyay iyo tan aan la adkeynin waxay ku kala duwan yihiin tan la adkeeyay waxaa loola jeedaa nabiga sallallahu alayhi wasallam kamuuna tegi jirin uu daa'imi jiray sidoo kale saxaabada ajarkoodana waa badan yahay marka sunnada la adkeeyay waxaa kamid ah 12 ragcadood oo la dhaho rawaatibta rawaatib waxaa loo dhahay waxay dhacaan salaadaha hortooda ama gadaashooda nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tukan jiray inta salaada una tukanin ka hor ama markuu salaada tukado ayuu markaasi daba dhigi jiray waxaa kamid ah 2 ragcadood oo salaada subax ka horeysa 4 ragcadood oo salaada duhur ka horeysa iyo 2 ka dambeysa 2 ragcadood oo salaada maqrib ka horeysa ka dambeysan ula jeedaa 2 ragcadood oo salaada maqrib ka dambeysa iyo 2 ragcadood oo salaada cishaa ka dambeysa waa 12 kaasi ragcadood ayaa la isku dhahaa rawaatibta sunnooyinka mu'akkadka ah rawaatibta ee salaadaha ka horeeya ama ka dambeeya sunnooyin inta ka badan waa la tukan karaa laakiin waxaan ka hadlaynaa waa sunnooyinka mu'akkadka ah waxaad ku darsataa 12 kaasi salaada witrka nabiga sallallahu alayhi wasallam kamuuna tagi jirin waxaa ugu yaraan wuxuu tukan jiray 3 waxaa ugu badnaa 11 ayaa ugu badnaa ama uu tukan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wax ka badanna qofku waa tukan karaa salaatu leyl badan ayuu tukan jiray laakiin waxaa laga hadlayaa witrka inkastoo salaada wixii ka dambeeya cishaa wixii la tukadaba witr la isku dhaho magaca guud laakiin haddana nabiga sallallahu alayhi wasallam wax badan ayuu tukan jiray wuxuuna ku witrin jiray oo witrka uu ka dhigi jiray 3 ilaa 11 ayuu ka dhigi jiray marka qofka wax inta ka badan uu tukan karaa marka waxaan ka soo qaadanaynaa tirada ugu yar ayaan ka soo qaadanaynaa witrka oo ah 3daas ayaan ku darsanaynaa 12 kaasi ee rawaatibta ah xisaabta halkaas ayaan ka wadanaynaa insha Allah taala salaada qorax madoobaadka ama bil madoobaadka waa 2 ragcadood oo markaasi min 2 rukuuc iyo 2 sujuudood iyagana waxay kamid yihiin sunnooyinka mu'akkadka ayay kamid yihiin sida la isku raacsan yahay sida loo tukanayo qofku wuxuu qaadanayaa tahaaradii iyo abaabulkii looga baahnaa salaad qofka markuu tukanayo wax kasta looga baahnaa qiblada u jeesanaya Allahu akbar buu leeyahay wuu xiranayaa salaada faatixada uu akhrinayaa kadib wuxuu akhrinayaa qiraa'ad dheer buu akhrinayaa qiraa'ada dheer kadib uu rukuucaasna wuu dheereynayaa rukuucii uu kasoo toosayaa haddana faatixo akhrinayaa kadibna qiraa'ad dheer buu akhrinayaa laakiin tii hore ka gaaban kadib haddana wuu rukuucayaa rukuuc dheer buu rukuucayaa laakiin kii hore ka gaaban marka saddexaad buu haddana faatixa akhrinayaa qiraa'ad dheer akhrinayaa kadibna waa sujuudayaa marka waa 2 ragcadood oo min 2 rukuuc iyo 2 sujuudood marka xisaabta halkaa kaga darso waa 2 ragcadood salaada roobdoonka waa 2 ragcadood oo laga doonayo markaasi dadka muslimiinta inay tukadaan xilliga ay abaarta jirto ducadan ayaa la akhrinayaa af Soomaali baan ku qoray si loo xifdiyo dadka markaasi uu dhibayo carabiga اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل ومعنى هذه هي الله ورابي روبنا الروبية بيردقة جدين كمرة دوغنا نوصو بحية نأنفع أو أن ندبن دقدقة أو أن صوتاهي ودعاء ونكسن صلاة عيدها لبدا عيدود عيد الفطر عيد الأضحى أو من 2 ركعدود وهالكاسي waxay isku noqonayaan 4 ragcadood dabcan ciid waa taqaanaan sida loo tukado waa 2 ragcadood malaha adim iyo aqimtoona malaha takbiirtan ayaa la qaadayaa sidan ayaa loo qaadayaa takbiirta xilliga markaasi salaada la tukanayo amaba salaada ka hor amaba kadib sidan ayaa loo qaadayaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamdu ragcadda koowaad waa 7 takbiir sidoo kale kuma jirto takbiirta xirashada tan labaadna waa 5 takbiirood sidoo kale waxaan ognahay waxa wanaagsan in lagu tukado meel furan oo markaasi banaana sida beeraha oo kale ayaa sunna ah oo wanaagsan
sidoo kale in lagu soo laabto wada ka duwan wadadii lagu tagay. Markaad wadadan ku tagto waxaa wanaagsan markaad soo laabanayso inaad wada kale kusoo laabato sida sunnada. laakiin taas sunnada mu'akadka ka mid ma aha. sunnada mu'akadka waxaa weeyaan waa labada ragcadood ee la tukanayo ciidda. marka tiradaasi la isku daro intay noqonayso qof walba waa fahmi karaa. marka waxay noqonaysaa 23 sidaan u malaynayo 23 ragcadood weeyaan sunnooyinkaasi mu'akadka insha Allahu tacaala. aad baa mahadsantihiin. halkaasaan ku joojinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. casharkeena dambana waxaan kusoo qaadan doonaa sunnooyinka ee ghayra mu'akadka ama aan la adkaynin. جمع ونكسن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.